rinji intaad halkaas igaga dhoobteen ood halkaas igaga dhoobteen stagea laga tuuray naag dayacan baa la tuuraa hadal aad tiraahdeen oo kaba yara ka dambayso kaba yaroo nool oo nuuxnuuxsahe warkaad tiraahiin oo kaba yara ka dambayso wax macno ah uu sameeyayo malaha وائد السلام يا أصحابته وكبت حاجي وحنكون سوغانهاي هولن oon mar dhow imid waxaan rabay inaan idin la sheer gareeyo kuwii maalaayacniga ahaayeen naagihii iyo nimankii maalaayacniga ahaayeen nolosha ka dhacay oo youtuberka isu bixiyey waxa youtuberka la yiraahdo isu bixiyey oo propaganda iyo been iyo qashinimada uun ka shaqeeya ayaan maaragtay youtube-ki sida qashin camal loogu soo daadiyey meeshay soo wada fadhi xun yihiin mid codduuba iyo mid soo fariisata iyo kuwo intii maalaayacniga kala ahayde maaragtay iska soo qoraayo baga maxaa baga ah waxay sameeyeen xafladeedii oo marqaatiyadeeda leh oo dadka shacabka ahaa ay kasoo qayb galay taageerayaasheeda ahay faraha badnaa ay joogaan way xaadir yihiin marqaati yihiin oo dadkii aniga meesha igu xalay toole igu haayay ee suurta geliyay inaan meesha kana heeso hoolkaas soo galo anoo nabad qabana iga saaraan waxaan horta lambaroon u mahad celinayaa walaalahayga ee reer Germany ee aniga i protect gareynayay meeshaas nafta duldhigay wiilasha walaalahay ahaa oo ka mid yahay Khalid Miino ee walaalkay Teddy brother kale oo aan magaciisa hadda hayninoo Cabdiqani Xaaji October oo la soo dardaarmay Minneapolis ka soo wacay iyo dhammaan wiilashii aniga dhexda ii xirtoo naftooda ii huraayay xalay riskiga ii qaatay wiilal dhinaca Zaki Caamir ka socday oo walaalaheen ah ayagana oo ma aragtay naftana dul dhigay oo Swiss ka imaadeen qaar adigu wiilashii halka ka wada shaqeynay oo i caawiyay oo security aniga aan soo kireysanay ajnabiga ahaa intuu cabsaday ay wiilasheeni ku dhiiradeen wuxuu security ajnabiga ahaa la soo kireystay 7 nin ahaa ay ka cabsadeen waxay ka cabsadeen inay wiilasheeni hirgeliyaan xafladaas inay dhacdo markii security faraha ka baxay marka kilibyo waxay isu keenayaan naagihii nimankii maalaayacniga ahaa nolosha ka dhacay kilibyo dadka markii stage sida loo bariyay inay iyaga degaan stage sida looga bariyay oo marba qaar hor la soo koraan oo qaar kan markii laga daadiyo degal yiraahdo qadana kuwa kala soo koraan oo ma aragtay markii la kari waayay dadkii wiilashii hadba xeeladay adeegsanayeen markii dambe dadka inay wada tuuraan oo daadiyaan intay gacmaha isqabsadaan inay garbaha ay ma aragtay ku riixaan oo stage-ka caadi uga tuuraan ay go'aansadeen because meel laga heesi kara ma lahayn mar qalabka la daminayay oo fiilada la bixinayay marka kilib marka alwaax la ii dhigay ayadoo dadkii saa loogu sii duldaadinayo oo marba stage liis dhinac wiilasha inta go'aan gaareen markii naftu qabatay inay awood adeegsadaan ay go'aan ku gaareen oo labada dhinac ka daadinayaan dadkii kilibkaas iyo waxay soo qaateen kilib markii aan baxayay oo dadkii in wiilasha isaarayaan ay arkeen ay naga soo dabayaaceen oo ayagoo dhukuray ma baxaysaa war dhukuray waa tagtay ay leeyihiin ayay labada kilib bay soo qaateen markaas inta is dhexgeliyeen ee waxay leeyihiin farxiye kaba yaro stage-ka laga tuuray anigu naag stage laga tuuro waa ka weynahay naag dad la'aan socotana ma ihi naag rag la'aan socotana ma ihi meel kastoon adduunka tagana anigu qof duceysanoo daacadahan ahay meel kastoon adduunka tagana dadka inta wanaagsan baa ilaahay igu aadiyaa ummadana hooyo aabaa ilaahay iga dhigaa ducadaasna waa duca aniga waalidkay igu duceeyay oo qof duceysan baan ahay waxay dhibaan anigu ma arko waxay protect gareeyo oo caawiyo xabadka iyo tunta ma ahane taasna aanastinimadeyda iyo inaan duceysanahan aan ku keensaday way iigu ahaato ilaahay iga dhigay marka waxaan u sheegayaa inta maalaayacniga iska daaya farxiye kaba yare oo korkeedu wax gaareen aniga dadka xafladeyda showgayga dadka soo galay dad 3000 people ma aragtay kor u dhaafay ahaayeen dadkuna wax dhiba oo maanta ma aan dhihi karo dhibaatay wadeen aan dhihi karina ma jirin dad muxubbo iyo jacayl uu waday ayuu ahaa anay jeclaayeen
أنا إربين إن هيسا حتى وحي أيقو دنيناين أو أن بالله هيسي واي فرحية أن صور لقلو فرحية أن كركيضة تابتو أو أن صور لقلو أما أن تابتو intaasay dadku isku dilaayeen heestaydaba inay aniga itaabtaan qaara waxay dhahayeen wallahi waa run waa dhukura dheeman wallahi waa ayadi ay qaarkood dhahayeen sida inaysan weligood xataa telefishin iga arkin oo codkayga un maqli jireen oo markaas igu horeyso aragti camal ay dadka qaarkood u dhaqmaayeen waana wax lagu farxo waaye in dadkaagu saa kugu jeclaadaan marka aniga taabashadayda in sawir layla galo ayaa dadkaas xalay ku dagaalamayeen showga soo galay wiilasha walaalahayna waxay iga protectigareynayeen oo iga difaacayeen in dadkii inay jecel yihiin ayagoo og inaysan dhibaato yar igaarin oo aan jacayl dartiis wax la gaarsiin marka maalayacniga aad ka shaqaynaysaan iyo qashinnimada aad wadaan aniga hadday wax igaareen ama wax igu dhaceen xalay hadda anaanba aamus lahaynba ani hadday wax igu dhacaan oo korkayga wax gaaraan ama ma aragtay lay dakhro ama dhala laygu dhufto ama stage layga tuuro de wax caadi oo la ogaan karay ay aan ummadooda ogaatay aan lahayd laakiin inaad anigiyo layga taxadaray oo wiilal walaalahay ay nafta idul dhigeen oo dadkii jeclaa layga badbaadinayay jacayl in wax la ii yeelo layga badbaadinayay inaad dhahdaan farxiya la tuuray war dad baa meesha wax ku noqday oo gabar baa stage-ka dadkii laga daadinayay kamid ahayd oo jabtay oo ambulance meesha looga qaaday marka aniga in dadku isoo gaaraan oo stage iga tuuraan wax suurta gali karay wax dhici karay ma ahan rag baa naftooda ii huraayay aniga wiilasha walaalahay ah reer Germany ninka la yiraahdo Teddy iyo Khalid Miino iyo dhammaantood wiilasha walaalahay ah yarka Cabdiqani Xaaji October soo diray adigu wiilasha walaalahay ah reer Somaliland u badnaa iyo wiilasha Caamir Zaki dhinaciisa ka socday oo reer Jigjiga war anybody oo aniga xalay toole i protectigareynay ee iga fakarayay waxaan u hayaa abaal waan u mahad celinayaa wax kalena laygama protectigareynayn wax kalena laygama difaacaynin dad jecel oo fara badan baa meesha iskugu yimid oo aanan mid kuugu imaanayne hal mar ay 200 qof ku imaanayso stage soo korayso marka xataa in Jaaniska in la heesa ah hoolkay ka soo daahday ay dhaheen hoolka meesha isku dhaxyaacsan oo dadka ay isku wada dhaxyaacsan yihiin oo ay buuqayaan oo stage-ka dul saaran yihiin fanaan hoolka lama soo gelin karo waana go'aanka wiilashu ay qaateen meesha at least markay meelan soo gali kara noqoto inay soo galiyaan markii dambe markay waxba ka qaban waayeen oo dadka kala dajin waayeen sidoodii ayagoo isugu dhaxyaacsan oo isdhex boodaya la soo dhex marsiyo xoog lagu soo galiyay xoogna waa lagu saaray marka heerkaas waa heer la gaaro in korkaaga in la taabto iyo in sawir lagu la galo la isku dilo oo waxba bayaysan noo heesin anina taabtaan rabaa ya in la isku dilo heer la gaaro waay ya waxaan idin sheegayaa oo kale anigu waxa aan iskooradan u dhigaayo oonan u damaynin waxa ay meeshan tagaba iigu kala kacayso anaa qishka idin sheegaya iga dhageysta war aniga qalbigayga nadiif ah wadna fiican oo nadiif oo xalaalan ka wataa xaasid ma ihi cidna kuma mashquulo fanaan walaalkeeya noloshiisa kama xumaado hadday fanaan u kala kacdo inaan ku farxamo kama xumaado haddii meel aan tegay oo aan bandhig faneed u tegay aan waxun ku soo arko fanaaniinta walaalahay waa la sheergarayaa meesha iska ilaaliyaan dhaha uma qariyee waa iisoo kala kacday dad fiican joogay aada ma dhaho meeshay iigu kala kacdo oo meel fiican ahna waa iigu kala kacday aadan dhaha meeshay wax si iga noqdaan ama dad xun joogaanna fanaaniinta walaalahay rag iyo dumarba waan uga digaa fanaan kastana inay u kala kacdo oo meeshuu tago uusan ku khasaarin oo dantuu u baxay ay usoo fushana waan jecelahay that's why waxaan rabo oo dhan oo aan u safro ama danahayga ah ay iigu hagaagaan marka heerkan waa heer la gaaro dhukura dheeman mar hore tagtay tallaabsatay ha ku daba luminina propagandada iska daaya fankan intaan iska dhaafayana iskoorka saan loo ahaana meeshaan tago saan lay ahaanay because de anigiyaa honesty ah qof daacadaan ahay anigu oo dadkeedana jecel oon xaasid ahayn marka ummaddaa hooyo aabba ilaahay kaaga dhigaya markaad adigu nadiif tahay marka waa idi salaamay youtuberada waxaan u sheegaa
meel markay wax ka dhacaan